السلام عليكم أصحابتا maanta waxaa idin hayaa sheeko aad u macaan fadlan intaan sheekadeena bilaabin like saar channelka subscribe na saar ku soo dhawaada sheekadeeni oo faahfaahsan waqtiyada kamid ah waxaa jiri jirtay boqortooyo aad u weyneed waxaana ku noolaa laba gabdhood oo walaalo ah labada gabdhood waxay ahaayeen laba amiiradood oo awood leh gabadha weyn ee hani lagu magacaabi jiray waxay lahayd awood iftiinkeeda soo saara gabadha yarna oo lagu magacaabi jiray kifaax waxay lahayd awood wax kasta burburinaysa labada boqortooyo ee labadan gabdhood kuma faraxsaneen gabadha weyn oo loogu magacaabi jiray hani balse sababta waxay ka oohin jirtay gabadha yar ee kifaax waxay isdhihi jirtay markaas laguma jeclaa maalmaha kamid ah waxaa xanuun ku yimaada hooyadoodna waa ay dhimatay gabadha weyn ee hani waxay ahayd mid daryeesha aabaheed oo boqortooyada dhan ayada ay ahaan jirtay oo wax kasta u sameyn jirtay halka ay gabadha yar ee lagu magacaabi jiray kifaax ay wax kasta burburin jirtay arrintaasi oo ka careysiin jiray hani waayo awood uma leh inay ka hor imaato walaasheed ka yar markay wax iska xanaaqi jirtay waxayna burburin jirtay wax kasta u dhow boqorkii waa xanaaqay wuxuuna yiri waxay gabadhan maxay ahayd gabadhan ayaanta dhalay ayaa ka shalaanayba boqorkii xanuun ayaa ku soo booday intuu dhimana wuxuu isku geeyay awoodiisa oo dhan wuxuuna ka sameeyay taajkii ayuu gabadhiisa hani ku yiri boqortooyadan ayada adaan kugu wareejiyay ee taajka madaxa gasho gabadhii weyneed ee hani ayaa saacido ooyeysa waayo oo aabaheed dhimanayo gabadhii ka yareed kifaax ayaa maqlaysa hadalkani waxayna dhahaysaa gabadhan maxay ahayd wax kasta way iga hor imaatay boqortooyadan waa inaan ka saara burburiyo habeenka hor xafladda caleemasaarka ee hani ayaa qolka waxaa soo galaya gabadhii ka yareed kifaax waxayna madaxa gashanaysaa taajkii qaylada ayaa maqlaysaa gabadhii weyneed waxayna soo carasaa balse iskama celin kartaa quwad awood badan ayaa ku sutuuraysaa gabadhii hani way dhaawacmaysaa waxayna ka baxsanaysaa qasrigii dhulka ayayna ku soo dhacaysaa dadkii tuulada ayaa arkaya in amiirad hani ay dhaawacan tahay waxayna isku dayayaan inay ka qariyaan amiirad kifaax waxay ku xanaaqaysaa waxayna u bedelaysaa dhagaxaan intaa ka bacdi amiirad kifaax waxay samaysanaysaa ciidamo si ay u raadiyaan amiirad wixii ka hor imaadana waa ay burburin jireen boqortooyadii waxay isku dayaysay lama degaan iyo abaar amiirad hani waxay isku dayi jirtay si ay uga baxsato boqortooyada waxaana caawin jiray laba lamaane oo aad u fiican amiirad hani si dadka u caawin jiray ayaa hadan loo caawinaa muddo kadib amiirad hani waxaa soo fiicnaad caafimaadkeedii balse awoodeeda ayaa daciiftay ayadoo isla helaysa waxay tiri aniga walaashay dagaalka igala jiro awoodeeda ayay daciifisay odaygii reerka oo maqlaya ayaa ku dhahaya adigu waxaa tahay gabar aad u qalbi fiican oo aad u wanaagsan oo u qalantay xilkani aabaheedna adiga ayuu kaaga tagay maaha inaa isneeyo jubiso ee niyadda khayr amiirad hani ayaa ugu jawaabtay laakiin anigu sidan dadkan u caawiya ma garanayo isla habeenkiiba qoyska ayaa baleemiyay dadkii tuulada oo dhan si ay xal ugu raadiyaan amiirad hani oo boqortooyada ugu laabtiyaan oday kamid ayaa yiri waa inayna iskugu darnaa awoodeena oo dhan xalkaasna waa saas laakiin waa inay ahaataa qof qalbi wanaagsan haddayse ahayn qof qalbi wanaagsan amiiradani waana khatar ayaan ku galaynaa waxaana laga yaabaa inay nafteena halis gasho oo aan dhimano gabadhii dariska ayaa dhahaysaa aniga saacid waan ku kalsoonahay gabadhani sababtoo ah waxay leedahay qalbi aad u wanaagsan odaygii oo lamid ah ayaa yiri anna waan ku kalsoonahay waxay leedahay qalbi aad u wanaagsan dadkii oo dhan ayaa isku raacay inay subaxdii dambe siiyaan awoodeeda oo dhan arrintii ayay usoo bandhigeen amiirad hani balse amiirad hani waxay dhahaysaa taasi ma aha mid fiican balse waxa waaysan awoodiina oo dhan idinkana waxaa noqonaysaan dad daciifiina ay saasa sameynina odayga ayaa dhahay waa iska caadi gabadheeda odaygii oo mar labaad hadlay wuxuu yiri aniga arrinka uma sameynaya dartaada balse waxaan u sameynayaa dadkan bulshadaasada u adeeg lahayd oo aad si fiican boqortooyada ugu soo badbaadin lahayd dadkii oo dhan ayaa isku raacaya amiirad hanina waa ka yeelaysaa oo ay aqbalaysaa in awoodoodii la siiyo intaa ka bacdi dadkii oo dhan waxay iskugu soo shushubayaan awoodoodii oo ay iskugu soo dardarayaan amiirad hani waxay dareemaysaa awood aad u tiro badan halka dadkii kale oo ay daciifayaan oo ay dhulka ku dhacayaan balse amiirad hani ayaa ku dhaysaa inta xaggan nagama tagi doona ee waxa soo celin doonaa boqortooyadeeni nabad ahayd boqorad hani ayaa subaxdii dambe oo markii qoraxdii soo baxday imaanaysa qasrigii oo ku jirto walaasheed ka yareed ayaa dhahaysa
walaalkay walaashay meel kasta mar walba waan ku raadin jiray xagee ku maqneed waxayna dhahaysaa ugu jawaabaysaa adiga waa inaad joojisaa waxaan ku shaqeeyaa aan kula hadlay waxay dhahaysaa aniga waxaan rabaa inay boqortooyadani bubudho waan sida aan jeclahay oo aan ku hanweynahay waxay dhahaysaa haddii waalidiinteena ogaan lahaayeen arrinkani aad iyo aad ayay uga caroon lahaayeen ee arrinkan hasmeen walaasheedii gabadhii ayaa dhahaysaa aniga waaridka adeeg ku jeclaayeen ee iga jooja hadalkaaga waxayna sameynaysaa bahaladii waxayna ku dhahaysaa weerara oo ii soo qabta balse boqortooyada ayaa burburinaysa dhammaantood aadna waxa u xanaaqayaa walaasheed ka yareed waxayna soo shidinaysaa sixirkeedii balse iskama celin karto oo dhulka ayay ku dhacaysaa boqortooyada waxayna ku dhahaysaa aniga ma waxaad ii qabtaa daciif aniga iskama celin kartid waxayna damcaysaa inay disaboosh aqla ay keenaysaa boqortooyada waxay awoodeeda ku tuuraysaa taajka ay madaxa surneed balse madaxa ayaa aad iyo aad u xanuunaya oo ay wareeraysaa balse awood uma leh inay daawato walaasheed oo madaxu xanuunayo wayna caawinaysaa caawimaadna ay u bixinaysaa madaxa ay ka siibsaa dadka tuulada ayaa meesha soo gaaray qasrigii waxayna arkayaan wax walba sida u dhaceen odaygii oo ka mid ahaa dadkii tuulada ayaa ku dhahayaa adiga ayaa u qalma taajkani riyadiina way kuu rumowday ee madaxa taajka saaro eena boqortooyadani maamul gabadhii kifaax ayaa u imaanaysa walaasheed oo dhahaysaa iga raalli ah waxaan kugu sameeyey boqortooyadiina hadda ka bacdi waxay ku noolaanaysaa nolol aad u farxad badan sheekadani halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa balse dulucda sheekadu waa in dadka oo la caawiyo ay tahay abaal ku yaal balse dadka oo la xumeeyo ay tahay abaal isagana ku yaal please asxaabi channelka subscribe saara waxaan saaranahay wadeed ay ku tagi laheen 4,000 subscribers